السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو هذا مقالكين لبعض يعني كهل هنا verbs. اوكي مقالكين هرو waxaan kaga soo hadalnay linking verbs. marka muuqaalka labaad insha Allah taala maanta waxaan kaga hadli doonaa action verbs. okay action verbs maxaa la yiraahdaa? action saan naqaano waa ficil ama action Soomaaliya hataa iska dhahan. action verbs show action, يعني ficilada loo isticmaalo la yiraahdo action verbs waxay ku tusinayaan يعني fal ay ku tusinayaan ama action fal ama action ay ku tusinayaan. they create waxay abuurayaan an image of the happening in your head, يعني sawir shaygan dhacayo muuqaalkiis ayay maskaxdaada ku dhex abuurayaan ay ku tusinayaan. there are two kinds of action verbs. marka action verbs laba qayb ayay kala baxaan. okay qaybta koowaad waxaa la yiraahdaa transitive verbs, qaybta labaadna waxaa la yiraahdaa intransitive verbs. okay marka labadan in la kala fahmo aad ay muhiim tahay. transitive verbs aan sheegi doonaa iyo intransitive verbs. marka midda koowaad transitive verbs hadaan ka hadlo, transitive verbs waxa waaye the verb in a sentence that has direct object is known as transitive verbs. يعني markaad jumlada markaad isticmaalaysid يعني action aad sameynaysaa ama ficil baad sameynaysaa, ficilkaasina shaygaad ku sameysay uu muuqdaa. marka ficilada يعني aad sentence noocaas ku dhex isticmaal ama jumladaha noocaas ku dhex isticmaashid waxaa la yiraahdaa transitive verbs. يعني transitive verbs waxay leeyihiin ficilkan la sameeyay يعني aqbalaha ficilkana wuu joogaa ama objectiga midka uu actionka ku dul dhacayana meeshu يعني wuu muuqdaa, actionkana wuu muuqdaa. marka actionka saacana waxaa la yiraahdaa transitive verbs ayaa la yiraahdaa. okay the verb and should have something on which it is performed. verbkan halkan aad isticmaalaysid waa inuu lahaadaa يعني aqbalaha ficilkaas waa inuu lahaadaa shayga ku dul dhacaya waa inuu halka ka muuqdaa. the sentence containing transitive verbs can also be converted and يعني jumlada wadata transitive verbs and waa laga bedeli karaa from active to passive voices. يعني from active to يعني to passive voice waa loo bedeli karaa. okay marka haddii aad doonaysid inaan ka soo hadlo insha Allah taala muuqaal gaar ah active iyo passive voice inaan ka soo hadlo doonaysid يعني qaybta hoose inoogu sheeg insha Allah taala qaybta linkiga and comments. look at the examples below. marka jumladahan fiiri si aad u kala fahantid transitive and verbka, si aad u fahantid transitive verbka. the batsman hit the ball hard. the batsman hit the ball hard waa laba sentence halkan qoran. she walked the streets alone. okay the batsman hit the ball hard يعني batsman waxaa la nimankan يعني oo bubuwa marka wuxuu ku dhuftay kubadda ayuu si xoog ah ugu dhuftay. taas waa jumlada koowaad. she walked the streets alone ayada keligeed ayay wadada ku socotay. she walked the streets alone wadooyinka keligeeda ayay ku socotay. okay marka balan fahanno marka transitive iyo waxay tahay. in the first example jumlada koowaad we can see that waxay noo muuqataa that the verb hit يعني ficilka ama actionka hit okay dhufashadaas waxa la dhuftay has a direct object ball يعني waxay leedahay يعني dhufashadaas meel ay ku dhacday ay leedahay oo way muuqataa shayga lagu dhuftay waa kubadii. marka hit marka waxay noqonaysaa transitive verb. okay the sentence can also be converted into passive voice. sidoo kale يعني jumladan waa loo bedeli karaa passive voice. waxay noqonaysaa the batsman hit the ball. okay the ball was hit by the batsman. The same
case with the second sentence. sidoo kale jumlada labaad the verb walked yani waxaa la yidhi jumlada labaad gabadha keligeed ayay socotaa la yidhi maahano marka the verb walked ereyga yani actionkan ama verbkan socodka ah walked has a direct object straight wuxuu leeyahay yani meel lagu socdo ayuu leeyahay socoshada meel lagu socdo ayay leedahay oo objectiga ay leedahay meesha ku dulacday waa wadada straight weeyaan and then sentence can be converted into passive voice sidoo kale yani jumladaas passive voice waa loo bedeli karaa waxay noqonaysaa the streets were walked by her alone wadooyinka yani wadada waa lagu dul socday ayadaan ku dul socotay keligeeda okay taas marka waxa weeyaan waa transitive verb haddaan waxay ku dul celiyo waxa weeyaan waa ficil jumlad ku jira ficilkaasoo meeshuu ku dul dhacay ama aqbalaha ficilkii ay jumlad ka dhex muuqdo okay wax qarsoon maaha tusaale ahaan hadda kubadda waa lagu dhuftay dhufashadan la dhuftay yani kubadda ay ku dhacday way muuqataa socodka la socday wadada lagu socday way muuqataa haddii aad cunto cuntid cunitaanka wax cunaysid cuntadaasa cuntay waa kaas way muuqataa marka intransitive verbs aan aadno intransitive verbs the verb in a sentence that does not have a direct object is known as intransitive verb marka midii hore haddaad fahantay midana waa easy way waa fahmaysaa midda hore waxaa weeyaan actionka dhacay meeshuu ku dul dhacay waa loo jeedaa balse middan action ama ficil ama fal baa dhacaya falkan dhacay aqbalihii falkan looma jeedo ma muuqdo okay the sentence containing intransitive verbs cannot be converted from active to passive voice marka intransitive verbs jumlada ay ku jiraan active to passive lama bedeli karo inta active ka bedeshid passive kama dhigi karto okay let us see the examples below jumlada soo socda arko aan aragno the lion cub sleeps lion cub waxaa la yidhahdaa ilmaha yani libaaxa okay the lion cub sleeps libaaxa cunugiisu wuu seexday okay marka seexashadan hadda meeshan ficil ku jiro waxaa waa seexashada marka seexashadan yani ma muuqato meesha yani meesha la dul seexday okay marka actionkan seexashada ah yani aqbalaha ficilkan meesha kama muuqdo marka waxaan oranaynaa intransitive verb the house is flooded the house is flooded guriga yani wuu cidlooday okay hadda yani flood haddaan maqashid waa shay cidlo ah ama laga kala guuray laga kala tagay oo iska cidlo ayuu noqday gurigii marka cidladan uu gurigan cidlooday hadda meeshan waa cidlo ah yani shay baa cidlooday dalaha waxaa weeye waxay noqonaysaa action marka actionkan aqbalihiisa meesha kuma jiro oo cidladan meesha ku duldhacaysa yani ma muuqato okay the house is flooded guriga wuu cidlooday marka labadan waxaa la yidhahdaa intransitive verbs okay haddaad mar fahantid intransitive transitive waa fahmaysaa haddaad transitive verbs fahantidna intransitive kuma dhibayso waa fahmaysaa in both of the above examples labadan jumladan kor kusoo aragnay there is no direct object yani aqbalihii ficilka si toosa meesha kama ma muuqdo both cannot be converted into passive voice too labadoodana looma bedeli karo passive voice and so the verb sleeps and flood are intransitive marka sleeps iyo maxaa la dhihi jiray flood waxay yihiin waxaa la yidhahdaa intransitive verbs marka labadaas waxaa rajeynaya inaad kala fahanteen most verbs can be used both transitively and intransively for example yani balse jumlado fara badan oo waxaa jira oo transitively iyo intransitive labadaba noqonaya tusaale ahaan for example tusaale ahaan the child rings the bell cunug yar wuxuu ka yeeriyey ama ka qaylisiiyey the bell waxaa la yidhahdaa soo naxal jir bell waxaa waa
gambeelka. Okay, gambaleelka weeyaan. Marka wiilkii yaraa wuxuu ka qeylisay ama ka yeersiyey gambaleelka. marka here the verb rings. hadda halkan ficilka ka muuqda rings yeeritaanka wax laga yeerinaya waxa weeyaan waa transitive, because yeeritaankan wax laga yeeriyey shayga laga yeeriyey wuu muuqdaa oo yacni aqbalaha ficilkan shayga laga yeeriyey ama laga qeylisay waxa weeye waa gambaleelka. marka meeshan rings waxay noqonaysaa transitive, balse jumladan the bell rings loudly, gambaleelku zaid buu u qeyliyey. hadda rings halkan midda labaad qeylidan uu gambaleelkan qeyliyey yani waxay noqonaysaa intransively, because qeylidan shaygay ku qeylisay looma jeedo. okay, shay ay ku qeylisay looma jeedo ama aqbalihii ficilkaas meesha kama muuqdo. marka waxaan rajeynayaa inaad fahanteen transitive iyo intransitive. qofkii aan fahminna yani wuuna soo weydiin karaa. marka si aan u eego inaad fahantay iyo in kale daawade labadan su-aal ayaan doonaya inaad ka jawaabtaan. I stopped the car. marka waxaa sheegaysaa midan transitive jumladan transitive miya mise intransively waay. the car stopped suddenly, gaariga markiiba wuu joogsaday. transively miya mise intransively waay. hadda midan I stopped the car, waxaan joojiyey gaariga. midan the car stopped suddenly, gaariga markii wuu joogsaday. marka labadan transitive iyo intransitive mid ay yihiin ayaan doonaya inaan noo kala sheegtid. okay, there are some verbs such as go, sleep. yani waxaa jira ficilo qaar oo yani sida go bax, sleep yani seexshada, die dhimashada, iyo fall iyo dhicitaanka iyo wixii lamid ah, which show action that cannot be done to anything. kuwaasi waxa weeyaan waxay ku tusinayaan ficil balse ficil aan qof kale lagu sameyn karin. marka waxay yihiin intransitive ayay yihiin. hence these verbs can never be used transively. marka loomana isticmaali karo kuwan qaab transitive ah. okay, mar walba waxay yihiin intransitive, because seexashada adun baa seexana wax yani aqbalaha ficilka ma jiro. go sidoo kale, dhimashada iyo waxaas oo dhan waxa yihiin intransitive. marka labadan ka jawaab haddii aad fahantay. haddii aad fahmin wax su-aal waana soo weydiin kartaa. insha allahu tacaala videoga xiga waxaan kaga hadli doonaa reflexive verbs. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.